بسم الله ujeedo xukun maxkamadeed maxkamad sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka dable xooga Axmed Cabdilaahi Cabdi Caydiid 29 jir ah in nadiifo Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud markay aragtay aayada 178 suuratul baqara iyo qodobka 434 lala aqriyo qodobka 19aad xarka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lid ku ah dable xooga Axmed Cabdilaahi Cabdi Caydiid markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay rafcaan laha oo ah dil toogasho ah maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaan laha uu garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ka hor bixiyay oo ahaa in uu laba xabad oo AK-47 ah ku riday gaari yar oo daba socday gaari qooqan ah uu saarnaa asaga uuna arkayay gaarigii yaraa oo ka baxay wadada kuna dhacay darbiga kadibna ay soo xireen ciidanka ilaalada madaxtooyada markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen oo ahaa in ay arkayeen rafcaan laha oo rasaas ka dul ridaya gaari qooqan ah oo uu dul saarnaa kuna ridayay gaari yar oo nalka gudaha u shidnaa oo uu watay marxuum Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji markii ay joojiyeen uu isku dayay in uu baxsado kadibna ay qabteen maxkamadda markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaciyay rafcaan laha maxkamaddu waxa u cadaatay rafcaan le dable xooga Axmed Cabdilaahi Cabdi Caydiid in uu yahay dambiilo galay dambigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay gacan ku dhiigle dambiile gacan ku dhiigle dable xooga Axmed Cabdilaahi Cabdi Caydiid oo ahaa dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum Cabbaas Cabdilaahi Sheekh Siraaji akis wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dawladda federaalka Soomaaliya wabillahi tawfiiq